subax wanaagsan wiilkayga. mahadsanid aabe. ma hurdi miyaa aabe? haa waan hurday wiilkayga, laakiin hortaadaan soo kacay. khalitaanka maanta lagugu samaynaa. dhakhaatiirka kullina waan la hadlay. aabe khalitaanka ma ka cabsanaay. adaa agtay joogtaa. wiilkayga geesi baa tahay. geesinimadana waan kugu ogahay. markii lagu khalo wadna kale lagu geliyo aad baad u fiicnaanaysaa. qofka oo wadnada isiinaayo ma imaanaa? haa qofkaas intaaba joogaa. qofkaas ma dhimanaa? qofkaas lacag badan ayaan siiyey. waa qof weyn oo da' ah. nolosheediisani waa nacay qofkaas. qofkaas haddii dhimanaayo lacagna maxaa ka sameeyaa? qofkii xayaatatiisa nooc qof xun waaye. hadalkaan adiga le ma ii sheegino? السلام عليكم. حسن maanta caafimaadkiisa waa fiican yahay alxamdulilah. khalitaanka mala sameehaa? khalitaanka intii lagugu samaynin horta maharaajaha aa lagu geehaa igaarka meesha raajaha okay gee. okay qof xun wadnahiisa maan qaadanaa? qof xun wadnihiisa haddiid qaadatid wiilkayga ma ahan wadnaha inaad xumaahaayo. ma og tahay qofka wadnaha ku siinaayo inuu yahay nin geesi wiilkayga. aabe geesi maa naqahaa? haa wiilkayga geesi aad naqihaysaa haddii wadnaha lagu geliyo geesi. aabe qofkii xayaatadiisa nooco daciif maahino? wiilkayga istoosi dirito isku dhig ha islee leexinin. hada madaxa kaa lul. haa saas u lul proprio saas. hada laakiin respirare guda geli soo baxi dheh neefta bannaanka u soo baxi. wiilkayga xasan i dhegayso. aniga wiilkayga wadnahaanaan kuu heli. maxaan kale kuu samayn karaa? wiilkayga xanaaqin. wadnaha haddii lagu geliyo waa fiicnaahaysaa insha war adiga allah. maxaa samee hoosaa gadaal igu bax shaqadeeda aan kaa qabtee. wiilkayga iga raali ahow. ma rabin haddaadii inaan kugu khayliyo. waxaa leen rabay inaan ku fahansiiyo inaad geesi naqanaysid. qof oo wadnihiisa oo geesi ah lagu gelinaayo ogaaw gees ayaad naqaysaa. wiilkayga mar kasta waxaan ku dhahay markii wadna la helo oo oksiyooni ah ma la beerdareehaayo. aabe aniga waxay dhaheesi wadnaha hadday ka faraxsaneen iska dhaaf. aniga wadnahaan ma ka faraxsanihe. laakiin wiilkayga ogaaw fursad ayaad haysataa. fursaddan haddaad beerdaraysid fursad kale ma ku soo maraayo. dhib waaye wadna si u heli lahayd wiilkayga. ma reebi xayaati xun. qof weyn wadnahiisa inaan qaato waxaa iga roon dhimasho. maya wiilkayga waa ku baryaa saasa dhihin. wadnihii aad qaadatid daciifa baan kugu dhigaayo wadnahaas. ilaa xoog maahina xoog aad yeelahaysaa. aabe khalitaanka waan ka cabsanaa. wiilkayga khalitaanka ha ka cabsanin. nolol fiicanaad ku noolaahaysaa. carruurtii dhashidna ilmahayga ay naqanaayaan magacaygaa qaadahayaan. see waaye xasan. waa fiican yahay alxamdulilah. lama sac ka bacdi khalitaanka ayaa la sameynaa isdiyaariya.
see tahay hadda aayo adoogay wax ma akhrin kartaa haa wiilkaygiiyo warqaddaan markaad akhrisid waddaha oo lagu geliyay qalitaankiisa 1 bil ayaa laga joogaa aniga waxaan ahay qofkii daciifka ahaa oo wadnihiisa ku siiyey oo aad nacbaleed qof wadnihiisa ku sii haya male wiilkayga ilaa aabbahaaga ka ahayn qof kale waxaa ka sugin wiilkayga waan ku jeclahay wiilkayga I love you I love you I love you markii khalitaanka aan ku diyaariyeyni aabbahaaga waa isdilay sababtani isku dilay waxaa rawi wadnihiisa inaan ku siiyo sidii oo adiga uu noolaatid laakiin aabahayga waxaa i dhahay inaan la isdilo dembi waaye qofkii isdilo dabaal waaye aabbayaal badan dabaal aana khanaayaan filimkan waxaa laga turjumay stuudio safi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Padova iyo walaalkiina Aslax Aba Safi